madaarka cigaal international airport ee caasimadda Hargeysa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee qaaradda Australia oo dalka dib ugu soo laabtay waxa ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga safiirka Soomaaliland u fadhiya qaaradda Australia siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa iyo xisbiga kulmiye iyo qaybo kamid ah madaxda dhaqanka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliland Fuad Abdulsalaan Xaaji Xasan iyo safiirka Australia u fadhiya Soomaaliland Maxamed Ismaaciil Xuseen Ali Ahmed Ali Aliyu oo kamid ah golaha dhexe xisbiga kulmiye Ibrahim Guuleed Aydid Xabo xogayaha xisbiga kulmiye ee qaaradda Australia iyo Garaad Mahad oo kamid ah madaxda dhaqanka iyo Kaltuun Khaliif Dubad oo kamid ah haweenka xisbiga kulmiye ayaa tilmaamay gudoomiyaha qaaradda Australia xisbiga kulmiye oo dalka u yimi dardargelinta howlaha xisbiga kulmiye ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyagoo mas'uulkana dalka ku soo dhaweeyay xasan wuxuu ka mid yahay marka laga hadlayo qurba joogga reer Soomaaliland xisbiga ka tirsan xubnaha runtii ugu firfircoon campaign-ka xisbiga iyo horumarka xisbiga runtii ka qayb qaatay waxaan rajaynayaa maadaama waqtiga imika campaign soo dhow yahay imaanshihiisu inay daaran tahay hawsha xisbiga iyo dardargelinta xisbiga iyo sidii halkan uu mas'uuliyiintii xisbiga iyo xukuumadda runtii ula kulmi lahaa xasan waxaan ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa runtii maanta farxad weyn bay ii tahay shakhsiyan si gaar ah inaan ku soo dhaweyno caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa xasan run ahaantii waa shakhsi aad firfircoon daacad ah kartiya hawl ilaahay intaqaan waxqabadkeeda iskugu daray waxaan rajaynayaa in uu wax badan runtii ku soo kordhin doono imaatinkiisan iyo waxqabadkiisa iyo wax oo dhan intaba oo aan nin muddo badan soo shaqaynayay dadaal fara badan oo soo qabtay dadka xagga joogana isu keeno isku hagaajiyay haddana boqosho noogu yimi iyo inuu ka qayb qaato kaar qaybinta labada gobol haray hawsha lafteeda oo halka u yimi hawl qaramada wado taa uu dibadda ka wada mahayd tan maanta u yimin ay tahay inuu qayb galo lugtaan dheeraadkii nagu hadhay oo sooli sanaag ay u dambeysay biidnillaahi alkariim waan soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay dalkaaga hooyo ku soo dhawow waxaanu leenahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo iyo dadkaagii oo ku jecel oo ku soo dhaweynaya xukuumadda iyo xisbiga xasan axmed halac oo ah gudoomiyaha Australia runtiina tacab weyn geliyay xisbiga kulmiye waxaanu leenahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo oo ah ragga ugu cadcad ee ugu hawl karsan ee u taagan habeen iyo maalin waqtigooda iyo hantidoodaba ku lumiyay xisbigan sidii ay mar labaad u hanan lahaayeen maamulka dalkan Soomaaliland soo dhawow baanu leenahay xasan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee qaaradda Australia Xasan Axmed Maxamed Halac ayaa ka mahadnaqay sida milgaha iyo maamuuska leh ee dalkiisa hooyo loogu soo dhaweeyay halkan waxaan u yimi anigu dardargelinta xisbiga xisbiga oo howlo badan ka wadnay halka sida campaign-ka iyo muraaqabiinta san ugu soo ururin lahayn xisbiga iyo wada tashi dambe sida haddii loo dhigo ra'yada waaweyn ee dadka aqoon-yahanka iyo dadka qurbaha jooga wixii aan ku talin karno aan ugu gudbin lahayn hoggaanka sare waxaa kala wadnaa ah in waxaan joogay electionkii hore oo ay xisbiga kulmiye ku guuleystay wixii naga qaldamay iyo wixii imika noo faa'iidaaba in wada tashi dambe isugu noqono ayaa ku jira xisbigu oo sii ballaadhay oo laamihiisa sii ballaadheen oo waddan ahaan u ballaadhay xisbi ahaan u ballaadhay waxqabad badan baa ayuu xisbigu muujiyey inta xukuumadda uu hayay marka possibility wanaagsan iyo wax wanaagsan baa noo muuqda inaan ku guuleysanayno xisbiga inuu sanadkan uu noqonayno sanadkii kulmiye insha Allah dadkan wuxuu qabanaynaa anagu waxna isku doonaymayno xisbiguna waa ideology kii hore aan waday oo aan ku waday hoggaankii sare mujaahidkii weynaa kan dambaan wadaa oo ah mujaahidkii weynaa kii yimaado waa isku mid nin walba oo xisbiga ay mabaadidiisa aaminsan baan ku wada soconnaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin sida u soo kala lahdeen aad iyo aad baan u mahadsantihiin xisbiga sidaad ugu wadaan